kulan ay soo qaban qaabiyeen saxufiyiinta ama saxaafadda xorta ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa maanta ka dhacay hoolka shirarka ee librariga magaalada Garowe. kulanka kan loogu magac daray kulanka suxufiga aqoon-yahanka iyo maamulka ayaa waxaa ka soo qayb galay inta badan saxaafadda xorta ee ka jirta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, xubno ka socda golaha wasiirada, baarlamaanka iyo waliba odayaasha dhaqanka ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. kulanka kan oo looga gol lahaa sidii saxaafaddu ay uga warhayn lahayd waxqabadka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland hoggaankiisa sare, isla mar ahaantaasina ay fursad iyo chance-ba ugu heli lahaayeen si ay su'aalo uga weydiin lahaayeen bil kasta waxyaabaha ku soo kordha maamulka Puntland. ayaa suxufiyiinta iyagu goobtaasi joogay waxay u soo bandhigeen mas'uuliyiinta maamulka inay ka aqbalaan in maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland golihiisa wasiirada, kan wakiilada iyo cid kasta oo ay markaas u baahdaanba bishiiba mar kulan noocan oo kala ah la isugu yimaado si su'aalaha saxaafaddu ay uga baahan tahay maamulka ay u weydiiso, aqoon-yahankuna goobjoog u ahaado, shacabkana si toos ah loogu tabiyo. kulanka kan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta, hidaha iyo dhaqanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, Warsame Cabdishirwac Seefta Banaanka, iyo waliba agaasimaha guud ee hay'adda astaynta iyo maamul wanaagga ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, Professor Siciid Faarax, iyo xubno ka tirsan xildhibaanada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay Faysal Khaliif Barre oo ka tirsan suxufiyiinta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ka howlgala, waxaana uu soo gudbiyey ajandaha uu shirkani ka hadlayo iyo waxyaabaha ay ugu yeedheen mas'uuliyiinta maamulka iyo weliba wafdigii kale iyaguna goobjooga halkaasi ka ahaa. waxaana Faysal Khaliif oo umurtaasi ka hadlayay uu yidhi kulanka furitaanka barnaamij loogu talagalay in uu socdo muddo isla mar ahaantaana bil walba la soo cusboonaysiiyo. waxaa kulankan maanta lagu sharfay inay ka qayb qaataan oo aragtidooda ka dhiibtaan furitaanka barnaamijkan qaybo ka mid ah maamulka Puntland iyo weliba hay-adaha maxalliga ah, aqoon-yahano iyo waxgarad kale oo ay ku jiraan dhismo si weyn looga yaqaano maamul goboleedka Puntland. garaad Cabdilaahi Cali Ciid waxa uu ka mid yahay bahda iyo barnaamijka ka qayb qaadanaysa, sidoo kale Siciid Maxamed waxa uu ka mid yahay isna bahda maanta halkan ka dhiibanaya ra'yigooda iyo barnaamijkan. Luul Maxamed Warsame, Nasra Cabdisaaq Islaan iyana ka socota hay'adda Save Children, Nafiisa Cabdiraxmaan iyo Faatimo Maxamed, Siciid Faarax Yare oo hay'adda astaynta. intaasi kadib ayaa suxufiyiintu ay qof u weydiiyeen mas'uuliyiintii iyo odayaashii dhaqanka lagu marti qaaday kulankan loogu magac daray kulanka suxufiga, maamulka iyo aqoon-yahanka, oo saxaafaddu ugu talagashay bishiiba mar inay ku kulmaan mas'uuliyiinta maamulka Puntland, aqoon-yahanka iyo suxufiyiinta si ay ugu suuro gasho in su'aalaha iyo weliba waxyaabaha ay uga baahan yihiin in xog dheeriya laga helo ay markaasi u weydiiyaan mas'uuliyiinta ay khusayso ee maamulka. waxaana arinta ama markii ugu horeysay mikrofoonka loo duway wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland si uu ra'yigiisa uga dhiibto bal sida uu arko qorshahan cusub ee suxufiyiinta maamulka Puntland ay soo gudbiyeen. doodan nooca ku dhisan masaaliixda ummadda ku dhisan maxay sidaa u yihiin, maxay u ahaan waayeen ku dhisan asbaabeynteeda iyo macquuliyadeeda iyo hidooyinka ummadaha iyo sida ummadda uga doonayso iyo sida ay wax ku qabanayso iyo waxyaalaha ay u riyaaqayso oo ay leedahay iyada ay halkaa kusii arkeeya intaba in la isugu yimaado xogaalka la isugu noqdo xilli fiican iyo kulle dooda kulmay wax lamida anigu waxaan arkaa oo sidaa laysu taqmiilo, laysu faa'iido, laysu xogogaado waxaan u arkayaa tilaabo horumar, waxaan u arkayaa arrin fiican badan.
waxaa iyaguna dadkii goobtaasi ka hadlay ka mid ahaa garaad cabdilaahi cali ciid oo ka mid ah isimada maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ee si weyn looga yaqaano gudaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland waxaana garaad cabdilaahi cali ciid uu si weyn u soo dhoweeyey howlgalka kan iyo shaqada tan ay soo bandhigeen suxufiyiinta maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland waxaana uu sheegay in saxaafaddu ay xaq u leedahay inay maamulka la xisaabtanto isla mar ahaantaasina ay sheegaan dhaliilaha uu leeyahay maamulku soona gudbiyaan waxqabadka maamulka si bulshada aan iyagu markaasi warka ka haynin ay u ogaadaan halka ay marayaan howlaha loo igmaday xukuumadda garaad cabdilaahi cali ciid oo umuurahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi in wax la sheego oo ummadda wax loo sheego oo gaar ahaan gobolladeennan wadahadal iyo waxsheeg iyo saxaafad laga helo aada iyo aad arrin aan uga xasanayn waan soo dhaweynayaa agaasimaha guud ee telefishinka universal t v ee gobolada puntland ayaa isaga lafahantiisu ujeedooyinka loo soo abaabulay shirka kan ka hadlay waxaana uu sheegay in kulankani uu noqon doono bileh isla mar ahaantaasina saxaafaddu ay ka dalbanayso maamulka in bishiiba hal mar ay u soo diraan wasiirada ay ka codsadaan si ay wax uga weydiiyaan su-aalaha ay markaasi ugu jeelan yihiin shacabka reer puntland inay wax badan ka ogaadaan waxaana uu sheegay in iyagu soo gudbin doonaan jadwalka ay markaasi ku shaqayn doonaan iyo hadba mas-uulka maamulka ay markaasi u baahdaan waxaana isagoo umuurtaasi ka hadlayana uu yidhi inta waxgaradka ahna way soo dhaweynaysaa waa barnaamij jabka gelin waa isbedel aada u wanaagsan wadatashi markaan sameynay aqoonyahankii iyo annaga saxaafadda dhexdeeda waxaan noo muuqatay amase noo soo baxay natiijada marka waxaan aada uga codsanayaa aniga ku hadlaya magacabahda saxaafadda in qof walboo mas-uul ah wasiir madaxweyne madaxweyne ku-xigeen maalinteena xasilno bilowga waxaan ugu talagalnay barnaamijkan inay noo yimaadaan macnaha si meeshii kulanka kan ayaa ugu dambayntii ku soo gabagaboobay jawi isfahan iyo is-afgarad iyadoo mas-uuliyiinta maamulkuna ay u hambaliyeeyeen doorka saxaafadda maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ay ka cayaarayso sidii ay markaasi isha ugu hayn lahayd waxqabadka maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo dhaliilaha markaasi ay shacabku u soo gudbinayaan isla mar ahaantaasina ay qayb uga noqon lahaayeen sixitaanka ahdaafta loo asaasay maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland axmed cali faarax TV-ga Danjir Garowe.